Hosbitaal dhexdiisa, Simon ayaa si kedis ah sariirta uga soo toosaya isagoo aad u naxsan, waayo ma xasuusto sidii uu halkan ku yimid. Newman ayaa dejiya wuxuuna u sharaxayaa in xalay ay soo heleen shaqaalaha gurmadka degdega ah isagoo gariir caloosha ah ku qaba gurigiisa hortiisa. Isbitaalku waa inuu ka soo saaro wax kasta oo caloosha Simon ku jiray. Newman caadiyan waa dhakhtar carruurta ku takhasusay, laakiin maadaama uu isbitaalku shaqaale yari qabo, wuxuu caawinayaa qaybta gurmadka degdega ah. Wuxuu Simon siinayaa nacnac lollipop ah ka hor inta uusan u sheegin inuu farsamo ahaan dhintay. Wadnihiisu wuxuu istaagay ku dhowaad 2 daqiiqo, laakiin dhakhaatiirta ayaa ku guulaystay inay dib u soo celiyaan. Si loo hubiyo xasuustiisa, Simon wuxuu Newman u sheegaa macluumaadkiisa shakhsiga ah isagoo aan wax dhib ah qabin. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku dhibtoodaa inuu xasuusto taariikhda, wuxuuna leeyahay waa sanadkii 2000. Newman ayaa weydiiya magaca xaaskiisa, laakiin Newman ma fahmo jawaabta. Dhakhtarku wuxuu shaaca ka qaadayaa in sanadku dhab ahaan yahay 2002, uuna Simon leeyahay xaas la yiraahdo Anna. Simon wuxuu markaas bilaabaa inuu xasuusto habeenkii dhacdadu dhacday. Wuxuu yaalay wadada isagoo roob ku daayo, waxaana badbaadiyey Travis oo ah kalkaaliye isbitaal. Waxay geeyeen isbitaalka halkaas oo koox dhakhaatiir ah ay ku hareereeyeen. Wadnihiisu si kedis ah ayuu u istaagay, dhakhaatiirtiina waxay bilaabeen cadaadis xabadka ah, chest compressions, halka ruuxda Simon ay jirkiisa ka baxday si ay muuqaalka kor uga eegto. Markii dhakhaatiirtu isticmaaleen qalabka korontada ee wadnaha, defibrillator, ruuxdiisii ayaa dib loogu soo celiyey jirkiisa. Saacado kadib markii Simon uu qarka u saarnaa inuu soo tooso, wuxuu maqlay kalkaaliso Clayton oo u sheegaysa Newman in Simon la sumeeyey loona baahan yahay in booliiska lagu wargeliyo. Laakiin Newman wuxuu rabaa inuu marka hore baaritaanada sameeyo. Xilligan la joogo, Newman wuxuu soo gabagabeynayaa in Simon uu qabo xasuus lumis muddo gaaban ah, maadaama uusan xasuusan karin 2 sano ee lasoo dhaafay. Wuxuu u xaqiijinayaa in xasuustiisu ay si tartiib ah u soo noqon doonto, laakiin Simon weli ma rumaysan karo inuu xaas leeyahay. Daqiiqada kadib, naag timo cad ah ayaa qolka soo gashay, waxayna u carartay inay Simon habsiiso, iyadoo ku nafisay inay heshay isagoo nool oo caafimaad qaba. Markii ay dhunkato, isagu ma falceliyo, markaas ayay yaabaysaa waxa khaldan. Simon oo dareemaya awkward xishood ayaa u sheegaya dhibaatadiisa xasuus lumista, markaasay naagtii naxaysaa oo ay leedahay waxba iima harin ka hor intaysan qolka ka cararin. Simon isla markiiba wuxuu isku dayaa inuu eryado, laakiin Travis iyo Newman ayaa joojiya, iyagoo leh qofna qolka kama bixin. Markii Simon uu Newman weydiiyo sababta uusan xaaskiisa ugu sheegin xasuus lumista, Newman wuxuu leeyahay, waan u sheegay. Isla daqiiqadaas, xaaskiisa Anna ayaa garabkooda ka soo muuqanaysa oo ku habsiinaysa isagoo nafisay. Kadib, Newman wuxuu isticmaalayaa xujo puzzle ahaan tusaale si uu Simon ugu hago xasuustiisa. Anna waxay sharaxaysaa inaysan xalay la joogin Newman. Waxay joogtay guriga, isna wuxuu joogay xaafadan, laakiin ma garanayso sababta. Simon wuxuu ku fikirayaa inuu booqan lahaa walaalkiis Peter oo dhowaan u soo guuray gurigii waalidkood ee dhintay. Si kastaba ha ahaatee, Anna waxay leedahay Peter wuxuu dhintay ka hor intaan Simon la kulmin iyada. Isagu wuxuu bilaabaa inuu naxdo, Annana waxay rabtaa inay u tacsiyeyso, laakiin Newman ayaa ka fogeynaya. Kadib, Simon wuxuu leeyahay wuxuu booqan lahaa walaalkiis xalay, Newmanna wuxuu xaqiiqsanayaa inuu ka hadlayo maalintii u dambeysay ee uu xasuusto sanadkii 2000. Muuqaalo xasuus ah ayaa muujinaya Simon oo habsiinaya walaalkiis, gaari wadada maraya habeenkii, iyo Simon oo baabuur ka haynaya xilli roob daayo. Wuxuu xasuustaa inuu arkay iftiin dhalaalaya oo ay ku xigto meel bannaan oo madhan, taas oo ka dhigaysa inuu oyo. Anna waxay u sheegaysaa inuu galay shil gaari ka hor intaysan la kulmin, laakiin marnaba ma aysan baran faahfaahinta. Waxay kaliya ogaatay inuu booqday walaalkiis, taas oo ahayd wax la yaab leh sababtoo ah walaalaha isma hadlin tan iyo markii ay ku murmeen dhaxalkii waalidkood. Inta ay marayaan marinka isbitaalka, Simon wuxuu arkaa Travis oo u libiqsanaya, winking. Anna waxay sii wadaa hadalka, iyadoo sharaxaysa in kadib shilkii gaariga, Simon isna la keenay isbitaalkan. Waxay sidoo kale u sheegaysaa inuu magaaladan yimid 2 maalmood ka hor si uu u xiro gurigii waalidkiis, kaas oo laga tegay tan iyo dhimashadii Peter. Qorshihiisu wuxuu ahaa inuu xirxiro alaabta guriga oo uu hagaajiyo dhowr waxyaabood. Newman wuxuu tilmaamayaa in uumiga ka dhashay alaabta nadiifinta qaarkood ay sumayn karaan. Si kastaba ha ahaatee, Simon wuxuu leeyahay muuqaal ah jaranjaro iyo muraayad jabtay. Kadib markii Newman uu qolka ka baxo, Anna ayaa dharbaaxaysa Simon, waxayna u sheegaysaa inuu joojiyo iska dhigdhiga. Simon wax fikrad ah kama qabo waxa ay u jeedo, Annana waxay leedahay Simon ayaa dilay walaalkiis. Waxay sidoo kale weydiisaa haddii ay run ahaantii u qalanto waxan oo dhan. Wadahadalkooda waxaa kala gooyay Travis oo qolka soo galaya, isagoo ku dhawaaqaya inay tahay xilligii baaritaan kale. Anna waxay isticmaashaa fursadda si ay u baxdo. Inta uu Travis Simon gelinayo mashiinka miriga, wuxuu u sheegayaa inay jiraan warar xan ah oo sheegaya in qof isku dayay inuu dilo. Simon waa diidayaa, isagoo la wadaagaya aragtida uumiga sunta ah. Travis wuxuu leeyahay qof kasta wuu dhintaa, laakiin sababta iyo sida loo dhinto ayaa ah siraha ugu weyn. Kadib Simon waxaa looga tegayaa keligiis mashiinka dhexdiisa si iskaanku u bilowdo. Si kastaba ha ahaatee, nin qarsoodi ah ayaa qolka soo galaya oo mudaya irbad. Simon ma dhaqaaqi karo sababtoo ah wuxuu ku xiran yahay mashiinka, wuxuuna ku qaylinayaa caawinaad ka hor inta uusan miyir beelin. Fiidnimadii, Simon ayaa sariirta ku soo toosaya isagoo qaylinaya. Bukaanada kale ee qolka ku jira ayaa u soo staraynaya, eegaya, Travisna wuxuu ugu yeerayaa wax ko waali.
Traman ayaa qolka soo galaya wuxuuna isku dayaa inuu dejiyo isagoo weydiinaya waxa dhacaya. Simon wuxuu u sheegayaa wixii ka dhacay shaybaarka mriga, laakiin Traman wuxuu leeyahay xalay ayaa la keenay qolkan. Simon oo aad u wareersan ayaa weydiinaya xaaskiisa iyo Neumann. Hase yeeshee Traman wuxuu sharaxayaa inuusan lahayn wax xaas ah uuna jirin Neumann oo ka mid ah shaqaalaha. Wuxuu sidoo kale shaaca ka qaadayaa in shilkii gaariga uu ahaa xalay, Simonna uu miyir la'aan ahaa. Ilaa hadda Simon wuxuu ka cararayaa qolka, wuxuuna aadaa shaybaarka mriga halkaas oo uu ka helayo dhakhaatiir kale oo iskaan ka qaadaya naag waayeel ah. Wuxuu sii dhex cararayaa isbitaalka ilaa Traman uu ka helayo cafega. Markii Simon uu weydiiyo sanadka uu yahay, Traman wuxuu ugu jawaabaa 2000. Simon ayaa naxaya wuxuuna ku dhaaranayaa inuusan waalayn. Markaas ayuu Traman qiyaasayaa inuu wax maqlay intii uu miyir la'aa, maskaxdiisuna ay la timid sheeko. Tusaale ahaan, Travis waxaa laga yaabaa inuu dhiirigeliyey magaca Travis, Neumannna wuxuu ka yimid Traman. Isla daqiiqadaas, Alayton ayaa qolka soo galaysa, Simonna wuxuu ka aqoonsanayaa isbitaalkii 2002. Waxaa isla markiiba soo raacaysa kalkaaliso labaad oo noqonaysa Anna. Simon ayaa magaceeda ugu yeeraya wuxuuna weydiinayaa inay halkan joogtay 24 saac ee u dambeysay, laakiin waxay leedahay maya, mana garanayso isaga. Simon wuxuu ku adkaysanayaa inuu halkan joogay shalay, uuna riyoonayn ka hor intaanu Anna ka codsan inay sheegto inay garanayso. Traman iyo Alayton ayaa ku riixaya sariirta waxayna siinayaan irbad kale. Inta uu Simon u sheegayo inaysan dhab ahayn, ayuu ku soo toosayaa mashiinka mriga dhexdiisa. Ninkii ajnabiga ahaa ayaa mar kale u soo dhawaanaya oo diyaarinaya irbadda, laakiin markan Simon wuxuu u qaylinayaa si aad u xoog badan. Neumann iyo Alaytonna waxay u imaanayaan inay hubiyaan. Ninkii ajnabiga ahaa ayaa albaabka gadaashiisa ku dhuumanaya. Simonna wuxuu Neumann u sheegayaa isaga, laakiin dhakhtarku ma rumaysanayo sababtoo ah dawadiisa waxaa lagu yaqaanaa inay keento dhibaatooyin dhinaca dhimirka ah. Kadib markii Alayton ay siiso dawo kale oo lagu dejiyo, iyada iyo Neumann way baxayaan. Simon wuxuu sii dareenayaa mashiinka ilaa Alayton ay dib ugu soo laabanayso. Wuxuu u sheegayaa inuu neef qabatayn dareemayo, claustrophobic, markaasay ogolaatay inay ka furto hal gacantiisa si uu u aamusmo. Simon isla markiiba gacantaas wuxuu isticmaalayaa inuu iska furo xarkaha, wuxuuna u cararayaa inuu eego albaabka gadaashiisa, laakiin waxba ma joogaan. Kadib Simon wuxuu ku laabanayaa qolkiisa, wuxuuna xaqiijinayaa inuu keligiis yahay mar kale. Wuxuu Neumann u sheegayaa in qof isku dayay inuu dilo, laakiin Neumann ma rumaysanayo, wuxuuna xasuusinayaa dhibaatooyinka dawada. Si Simon loo dejiyo, Neumann wuxuu tusayaa muuqaalka kaamirooyinka amniga si uu u caddeeyo inuusan qof kale qolka kula jirin. Travis wuxuu u malaynayaa in ninka ajnabiga ah uu ka mid yahay xasuusaha jaban. Simon wuxuu xusay Traman, Neumannna wuxuu leeyahay magacaas waan maqlay. Kadib wuxuu xusayaa Travisna wuxuu u sheegayaa inuu weli isbitaalka joogo sababtoo ah wuxuu sugayaa in wadnaha loogu deeqo, isagoo raadinaya jawaabo. Simon wuxuu si degdeg ah ugu cararayaa qolalka bukaanada kale, wuxuuna helayaa Travis oo seexanaya daah caag ah gadaashiis. Neumannna waa soo galayaa, Travis ayaana toosaya oo weydiinaya sigaar. Markaas Simon wuxuu u sheegayaa inay hadleen 2 sano ka hor. Erayadaas waxay ka dhigayaan Travis inuu xasuusto, wuxuuna mar kale ugu yeerayaa waxko. Simon wuxuu Neumann u sheegayaa in tani ay tahay caddayn ah inuusan wax iska malaysanayn. Kadib Simon wuxuu galayaa wiishka si uu qolkiisa ugu laabto. Markii albaabadu dhow yihiin inay xirmaan, naagtii timaha cadayd ayaa u soo carartay inay ku biirto. Wuxuu mar kale u sharaxayaa inuusan xasuusan karin, wuxuuna weydiisanayaa xoogaa waqti ah, waxayna leedahay waan ku sugi karaa. Kadib waxay u sheegaysaa inay jeceshahay oo ay dhunkanaysaa, laakiin waxay ku qasban yihiin inay kala fogaadaan marka qof kale wiishka soo galo. Waxay si awkward ah ugu sugayaan aamusnaan ilaa ninka ka baxayo. Simonna wuxuu naagta weydiinayaa sidii ay u wada joogi lahaayeen haddii uu guursaday. Waxay leedahay waxba kama qoomamaynayo. Simonna wuxuu xaqiiqsanayaa in Anna ay og tahay xiriirkan. Naagtu waxay sharaxaysaa inuusan Anna jeclayn, waxayna ballanqaadaysaa inay dib u soo laaban doonto mar dambe. Markay rabto inay baxdo, Simon ayaa gacanteeda qabanaya, wuxuuna xasuusanayaa in magaceedu yahay Alare. Si kedis ah, wuxuu u xiran yahay dhar qurux badan, wuxuuna taagan yahay guri isaga iyo Alare, isagoo u sheegaya inuu jecel yahay. Simon wuxuu leeyahay muuqaallo la yaab leh oo ku saabsan dhirta qolka ku jirta. Alarena waxay dib u soo muuqanaysaa iyadoo ubax dhigta gadaashiis ku wadata. Waxay ka doodayaan haddii waxa ay samaynayaan uu sax yahay, waxayna ku dhammaanayaan inay sariirta iska raaxaystaan, iyagoon ogaanin in walaalka Simon ee Peter uu arki karo. Isla daqiiqadaas, Simon wuxuu dib ugu soo muuqanayaa wiishka dhexdiisa, wuxuuna xaqiiqsanayaa inuu xasuus dhab ah, flashback lahaa. Wuxuu u sheegayaa Alare inuu hadda xasuusto inuu jeclaa, wayna isku habsiinayaan. Alare waxay yaabaysaa haddii ay u bixinayaan wixii dhacay ka hor intaysan bixin. Simon wuxuu isku dayaa inuu eryado, laakiin way ka dhumatay. Markii Simon uu qolkiisa ku laabto, wuxuu mar kale helayaa bukaanada kale. Travisna wuxuu xaqiijinayaa inay tahay 2000. Kadib Traman ayaa Simon u keenaya xafiiskiisa si uu ula wadaago war xun. Peter isna shilka ayuu ku jiray, laakiin ma badbaadin. Tani waxay kicisaa xasuusta Simon iyo Peter oo taagan meel qardhow. Kadib Simon wuxuu ku laabanayaa qolka. Travisna wuxuu la wadaagayaa in berito la qali doono, markaasuu ka cabsanayaa inuusan badbaadin. Simon wuxuu u sheegayaa inuu arkay mustaqbalka, wuxuuna u xaqiijinayaa inuu fiicnaan doono. Hadalkooda falsafada ah waxaa kala gooyay Traman oo leh Peter saaxiibtiis ayaa u timid inay aragto Simon.
wuxuu aadaa cafayga wuxuuna ku naxaa inuu arko Anna oo sugaysa, laakiin waxay si degdeg ah u caddaynaysaa inay keliya nasasho qaadanayso. Waxay haysaa dhowr su'aalood oo ku saabsan shilka. Si kastaba ha ahaatee, Alayton ayaa dib ugu yeeraysa shaqada. Kadib markii Anna ay baxdo, Alare ayaa soo galaysa cafayga, waxayna shaaca ka qaadaysaa inay tahay Peter saaxiibtiis. Simon ayaa naxaya sababtoo ah ma rumaysan karo inay walaalkiis waxaas ku samaynayso. Alare waxay leedahay, waxaan jeclaan lahaa inaan waqtiga dib u celiyo oo aan wax ka bedelo, iyadoo Simon uu xasuusto isaga iyo walaalkiis oo isku habsiinaya. Markii uu indhaha kala qaado, Alare way baxday, Annana waa soo laabatay. Waxay soo saartay qalab codka lagu duubo, waxayna ka shidaysaa codka Peter ka hor dhimashadiisa. Wuxuu yidhi, Simon ayaa tani igu sameeyey. Simon ayaa i dilay. Simon ayaa naxaya oo diidaya inuu rumaysto, isagoo Anna ku riixaya kursiga oo weydiinaya waxa ay isku dayayso inay samayso. Anna waxay bilaabaysaa inay ka hadasho lacagta qoyska Simon, xasuusna waxay shaaca ka qaadaysaa inuu guursaday sababtoo ah waxay ku cadaadisay blackmail. Anna ayaa kalgacal muujinaysa, waxayna ballanqaadaysaa inay marar badan arki doonto wixii hadda ka dambeeya. Markii Anna ay baxdo, Simon ayaa eryanaya, laakiin ka gudubka albaabka wuxuu ku tuurayaa gurigii waalidkiis. Alare waxay ku jirtaa gaari ay ka kaxaysanayso. Simon ayaa eegaya ka hor inta uusan gelin guriga, halkaas oo uu ka maqlayo laba cod oo doodaya. Wuxuu raacayaa codka ilaa uu ka arkayo isaga iyo Peter oo doodaya. Markii Peter uu isku dayo inuu walaalkiis dibadda u saaro, Simonkii hore waa diidayaa inay baxaan, waxayna ku dhammaanayaan inay dagaalamaan. Dagaalka dhexdiisa, Simonkii hore wuxuu Peter ka tuurayaa saqafka sare ee muraayadda ah. Simonka hadda jooga ayaa kor u koraya si uu muuqaal fiican u helo. Naftiisa hore waxay helaysaa Peter oo Miirland yaalla dabaqa oo ay ku daboolan yihiin muraayado, markaasuu bilaabayaa inuu jirka dibadda u jiido. Inta uu taleefanku dhacayo meesha dambe, Simon wuxuu daawanayaa naftiisii hore oo Peter gaari gelinaya oo kaxaysanaya. Si kedis ah, ninkii ajnabiga ahaa ayaa Simon gadaashiisa kasoo muuqanaya oo isku dayaya inuu weeraro. Simon isla markiiba wuu isdaafacayaa, wuxuuna lumayaa maankiisa isagoo ninka u sheegaya inuu ka fogaado. Wuxuu ku guulaysanayaa inuu ka dhaco hubka, wuxuuna bilaabaa inuu si isdaba joog ah u mudo weeraryahanka. Xasuuso wareer ah ayaa maskaxdiisa dhex maraya ka hor inta uusan Simon dib ugu soo muuqan qolka isbitaalka, isagoo dilaya weeraryahanka sariirta dushiisa. Isla daqiiqadaas, Alayton ayaa qolka soo galaysa oo hubinaysa jirka, waxayna shaaca ka qaadaysaa inuu dhab ahaan yahay Traffitt. Simon ayaa qaylinaya sababtoo ah wuxuu diidayaa inuu rumaysto inuu dilay saaxiibkiis. Markaas Alayton ayaa ka cararaysa iyadoo baqaysa. Simon ayaa isna jirka eegaya, wuxuuna xaqiijinayaa inuu khalad sameeyey, markaasuu miir beelayaa. Digniinta ayaa markaas ka dhacaysa dhismaha, Simonna wuxuu maqlayaa ilaaladii oo imaanaysa. Markaasuu u cararayaa wiishka, wuxuu ka soo baxayaa qaybta hoose, basement, wuxuuna arkaa ilaalada oo ka raadinaysa kaamirooyinka amniga. Wuxuu isticmaalayaa jaranjarada si uu u raadiyo meel looga baxo, wuxuuna si lama filaan ah ugu dhacayaa Anna, taas oo aragta dhiigga oo soo gabagabaynaysa inuu mar kale dilay. Simon ayaa gidaarka ku riixaya, wuxuuna ku dhaaranyaa in tani aysan dhab ahayn, laakiin Anna ayaa iska riixaysa, waxayna madaxa ku dhufanaysaa gidaarka. Laba ilaaliye ayaa markaas ka soo muuqanaya marinka, Simonna mar kale ayuu cararayaa. Markaas waxaa bilaabanaya cayrsi. Markii Simon uu albaab ka gudbo, Travis ayaa joojiya, Simonna wuxuu ku naxayaa inuu is arko isagoo nadiif ah mar kale. Travis wuxuu isku dayaa inuu la sheekaysto, laakiin Simon si degdeg ah ayuu ku baxsanayaa isagoo isticmaalaya jaranjarada. Wuxuu u cararayaa qolka Traffitt, wuxuuna ku nafisaa inuu arko isagoo nool. Simon wuxuu xaqiiqsanayaa inuu wax iska malaysanayay, markaasuu Alayton ka codsanayaa inay u sheegto dhimashadii walaalkiis. Si kedis ah, Traffitt wuxuu dareemayaa jiro, wuxuuna dhiig kuma tegayaa dhammaan daahyada. Dhiig ayaa sidoo kale ka soo muuqanaya xabadkiisa, Simonna wuxuu Alayton ka caawinayaa inuu daboolo dhaawacyada kuwaas oo u dhigma meelihii tooreyda lala dhacay. Inta ay dhakhaatiirtu soo galayaan qolka si ay u badbaadiyaan Traffitt, Simon ayaa dib u guranaya oo qaylinaya, aniga ayaa dilay. Xasuus kale ayaa muujinaysa in Simon uu Peter geeyey qardushiis isagoo gaari ku wada, una raray kursiga rakaabka. Kadib wuxuu sii daayay bareega, brake, gaarigiina wuxuu bilaabay inuu dhaqaaqo. Isla daqiiqadaas, gaari weyn oo truck ah ayaa waddada ka soo muuqday, markaasuu Simon si degdeg ah dib ugu galay gaariga oo uu joojiyey. Gaarigii weynaa ayaa dhowaan istaagaya, milkiilayaashiina waxay bilaabeen inay dhexdiisa isku wasakhaystaan. Simon ma haysto doorasho kale oo aan ahayn inuu Peter dhaqaajiyo oo uu kaxeeyo. Xilligan la joogo, Simon wuxuu Alayton ku qabsanayaa gees, wuxuuna ku qasbayaa inay hadasho. Alayton waxay u sheegaysaa in Peter ay keeneen gurmadka degdega ah loona diray qaliin, laakiin dhaawacyadiisu waxay ahaayeen kuwo aad u daran oo lagu xiray qalabka nolosha lagu caawiyo. Nasiib darro ma uusan badbaadin. Wadahadalkooda waxaa kala gooyay imaatinka Anna, Simonna wuxuu dareemayaa in dhaawaceedii sanadkii 2000 uu hadda ka soo muuqanayo foodeeda. Anna way iska indhatiraysaa, waxayna ka codsanaysaa inuu guriga yimaado, laakiin Simon waa diidayaa inuu ciyaarteeda ka qayb qaato, wuxuuna ku dhaaranyaa inuu wax ka bedeli doono. Kadib Simon wuxuu aadaa cafayga, laakiin weli wuxuu joogaa 2002. Markii uu arko xujadii Busle, Neumann wuxuu xoogga saarayaa layliga, wuxuuna ku guulaysanayaa inuu dib ugu soo muuqdo habeenkii xiriirkii isaga iyo Alare uu bilowday. Markan wuxuu ka foganayaa Alare ka hor intaysan waxba dhicin.
Si kastaba ha ahaatee, Peter weli wuxuu maqlayaa iyadoo u sheegaysa inay jeceshahay walaalkiis. Alare isla markiiba waxay eryanaysaa isaga, laakiin Peter dibadda ayuu u saarayaa, markaasay gaarigeeda ku baxaysaa. Simon oo quus jooga ayaa isku dayaya inuu Peter u sheego inaysan waxba dhicin, laakiin Peter waa diidayaa inuu dhagaysto, waxayna mar kale dagaalamayaan iyadoo isla natiijadii ay ka dhalanayso. Isagoo iska indhatiraya taleefanka dhacaya, Simon wuxuu Peter jirkiisa miyir la'aanta ah u jiidayaa gaariga si uu isbitaal u geeyo. Dhowaan roob ayaa bilaabanaya, waddadana waxba lagama arki karo. Simon si taxadar leh ayuu u kaxaynayaa, wuxuuna ku guulaysanayaa inuu ka leexdo dhowr baabuur. Si kastaba ha ahaatee, Peter ayaa si kedis ah u toosaya, Simonna wuu mashquulayaa, markaasuu gaarigiisa ku dhacayaa kii Alare. Daqiiqada kadib, shaqaalihii gurmadka ayaa imaanaya, mid ka mid ahna wuxuu u egyahay Anna. Alare mar hore ayay dhimatay, markaasay kooxdu xoogga saaraysaa walaalaha. Travis ayaa hubinaya Simon, taas oo u dhiganta xasuustii hore. Markii walaalahu bogsadeen, waxay isugu imaanayaan inay hadlaan. Simon weli wuu wareersan yahay wixii dhacay, markaasuu Peter u sheegayaa in taleefanka uu ka yimid Alare. Waxay ka xumaatay inay ka tagto, waxayna soo celisay gaariga si ay ugu soo laabato guriga, balse waxay ku dhacday gaarigii walaalaha. Simon wuxuu eegayaa sawir, wuxuuna dareemayaa in aabahood uu ahaa Newman. Wuxuu bilaabayaa inuu naxdo, Peterna wuxuu leeyahay dhammaanteen waan dhimanay, oo uu ku jiro Simon laftiisa, markaasuu u baahan yahay inuu iska daayo. Isagoo diidaya inuu quusto, Simon